halkani waa garoonka Stade France ay ka socdaan farxadda damaashaadka iyo gabagabada iyo cashada iyo is aragga iyo ismaac salaameynta ee dalka Faransiiska ka socota ciyaarihii soo socday Olimbikada ayaa caawa weli waxaa maraya ciyaartooydii kala duwan oo qalanjo caawa Paris idinka salaamayso idin la habeen wanaagsan meel kastoo aad caalamka ka joogtaan Paris ayaan ka salaam weli waxaa garoonka weyn dhexdiisa ka socda damaashaadkii iyo farxadii dhamaan ciyaartooyda caalamka ka kala socday halkani waa garoonka weyn Stade France oo ay ka socoto xafladda gabagabeynta ciyaarihii soo socday muddada 3 toddobaad ahayd ee soo bilowday 26 ilaa 27 caawana waa xafladii iyo damaashaadkii iyo ismaac salaameyntii ka socotay garoonka gudihiisa dhinaca kale cashe sharaf iyo madaxweynaha is aragga madaxda adduunka iyo qaarkood iyo waliba in xiriirka guud ee Olimbikada adduunka ayaa caawa xafladan ka qayb galay cashe sharaf gooni ah madaxweynaha waxa uu la kulmayaa dhammaan madaxda caalamka ka kala socotay ayaa lahaa waa qalanjo Paris idinka salaamayso idin la habeen wanaagsan barnaamijyadan oo soo socday muddo 3 toddobaad waxaa lagu tartamiyay ciyaaraha kala duwan ee caalamka sida ciyaarta kubadda gacanta kubadda miiska kubadda kolayga volleyballka orodka dheer dabaasha qaybaheeda kala duwan wiilasha iyo gabdhaha orodka marathonka oo galabta dhacay iyo waliba ciyaaro kala duwan ee qori isu tuurka tenniska ciyaaro far badan ayaa lagu soo bandhigay halkani wali waxaa socda ciyaartooydii kala duwan ee caalamka ka kala socday iyo taageerayaashooda iyo hogaamiyaashooda garoonka dhexdiisa ayaa ismaac salaameyn ka socota waana idin soo gudbin doonaa hadba ciyaarahaasi halka ay ciyaartooydaasi iyo sida ay ku soo dhamaato xafladda China ayaa imika socotay sida arkaysaan waa qalanjo Paris idinka leh oo habeen wanaagsan ee welina way inoo socon doonaan ciyaarahaasi iyo gabagabadooda insha Allah weli garoonka gudihiisa ayaan lagu jiraa ismarxabeyntii salaantii gabagabadii cashadii xafladii kala duwan ayaa caawa halkan ka socda waa garoonka weyn Stade France waa qalanjo Paris idinka salaamayso idin leh habeen wanaagsan waxaan idin soo gudbin doonaa waxaa halkan ku sugan waliba taageerayaasha ugu weyn ee kaalinta koobaad galay waa USA ama Mareykanka oo ku guuleystay 126 biladood waxay heleen 40 biladood oo dahab ah 44 qalin ah iyo waliba waxay heleen 42 biladood oo maar ah marka la isku daro 120 ayay heleen dalka Mareykanka marka waxaa ku soo xiga China oo iyadana heshay 40 dahab ah 27 biladood oo maar ah qalin ah iyo 24 biladood oo dahab maar ah marka la isku daro ayagana waxay heleen 19 waa China 40 dahab ah 27 qalin ah iyo 24 biladood oo maar ah marka isku daro waa 91 biladood ayay heleen waa qalanjo Paris idinka salaamayso kaalin saddexaad waxaa galay dalka Japan oo helay 20 biladood oo dahab ah 12 biladood oo qalin ah iyo 13 biladood oo maar ah halkaasna wuxuu ka helay Japan 45 biladood waxaa ku xiga Australia oo 18 biladood dahab heshay 19 qalin ay heshay 16 waxay heshay maar ay heshay 53 ayay heleen dalka Australia Faransiiska ayaa ku soo xiga oo iyadana kaalinta shanaad ku jirta 16 biladood ayay heleen oo dahab ah 26 biladood oo qalin ah iyo 22 maar ah marka la isku daro dalka Faransiiska wuxuu helay 64 biladood asagoo martigeliyay ciyaarahan socda ayuu martigeliyay marka cashe sharafna halkan ay ka socotaa marka waa qalanjo habeen wanaagsan idin leh weli waan soo gudbin doonaa waxaan ku jirnaa baa idin soo tabinaynaa ciyaaraha kala duwan waa China oo kaalinta labaad ayadana heshay
markii la arko Africa kaalinta koowaad waxaa ku jira dalka Kenya ayaa kaalinta koowaad inta badan Africa kaalimo fiican ma gelin laakiin hase yeeshee Kenya ayaa Africa ugu soo horeysa waxaa ku soo xiga South Africa iyo wadanka Algeria halkan waa garoonka weyn istaada Faransa waa qalanjooda leh habeen wanaagsan wili waa inoo soo socon doonaan xafladihii is aragii taageerayaasha iyo casho sharaftii madaxdii salaamihii iyo kulli ay noo socdaan haddana waxaa soo galay xiriirka caalamiga ah ee Olombikada iyo waxaa soo galay madaxdii kala duwaneed ee sportiga waxaa la guddoonsiin doonaa bilado kala duwan wadamadii kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad galay halkan waxaa ku sugan ciyaaro kale oo ayagana galabta iyo maanta dhacay ayaa socday ayagana waa la guddoonsiin doonaa kaalinta koowaad qofka gala wuxuu ku guuleysan doonaa bilad dahab ah kaalinta labaadna wuxuu ku guuleysan doonaa bilad qalin ah kaalinta saddexaadna wuxuu ku guuleysan doonaa bilad maar ah oo sidaas ay kaalinta koowaad kaalinta labaad waa qalanjooda ka salaamaysa Paris ciyaaraha ka socda Olombikada caalamka ayaa hadda socda orodkii galabta dhacay ayaa la guddoonsiin doonaa galabta orod ayaa ka dhacay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaa la hormariyay biladii maarta iyo qalinka dahabka ayaa ugu dambeyn doona waa abaalmarino la guddoonsiin doono qalin ayaa gabadhan heshay Kenya waa kaalintii ay gashay gabadhani Kenya Ethiopia iyo Kenya ayaa halkan ku sugan gabadhan arkaysaan waa dalka Ethiopia ayadana bilad ayaa la guddoonsiin doonaa oon filayo inay tahay qalin gabadhii hore maar ayaa la guddoonsiiyey Ethiopia kaalinta labaad ayaa la guddoonsiiyey bilad qalin ah aad ayay u faraxsan tahay Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada safka hore inta badan Africa gadaal ayay galeen hase yeeshee Ethiopia Kenya kaalinta koowaad ay ku jiraan aadiyada ayaa la siinayaa way guuleysatay kaalinta labaad dahabkii ayaa harsan sida ay u kala dambeeyaan ayaa loo kala hormariyay gabadhani waxa ay iyadana galabta orodka dheer ee marathonka waa gabdhii ku guuleystay orodka marathonka ayaa halkan ugu guddoonsiinaya Netherlands I think waa Netherlands dahab ayay heshay gabadhani aabaheeda Xuseen ayaa la yiraahdaa magaceeda kalena waan eegi doonaa waxaa la siiyey bilad dahab ah orodkii dheeraa ee Paris oo lagu soo wareegayay maanta ayuu ahaa 2 saacadood in ka badan ayay gabadhaasi ordaysay kaalinta koowaad ayayna keentay waa dalka Netherlands waxaa la dhahaa Sifaan Xasan ayaa la yiraahdaa Sifaan Xasan waxa ay u ordaysay dalka Netherlands waxay heshay bilad dahab ah gabadha dhexda ku jirta bilad dahab ayay heshay Sifaan Xuseen gabadha kale ee ugu horeysa waxay heshay Ethiopia iyo Kenya saddexdaas wadan Sifaan Xuseen kaalinta koowaad ayay gashay waa saddexdii wadan ee galabta galay kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta koowaad waxaa gashay Netherlands gabadhaasi Sifaan Xuseen ayaa ku guuleysatay dhexda ku jirta
aan ku celiyo markale kaalinta koowaad waa Netherland kaalinta labaad Ethiopia kaalinta saddexaadna Kenya Afrika labadaas gabdhood ee bidix iyo midig ayaa kaalinta koowaad kaalinta labaad galeen Ethiopia waa kaalinta labaad qalin ayay ku guuleysteen Netherland kaalinta koowaad Kenya kaalinta saddexaad halkani waa garoonka weyn Stade France oo ay ka socoto xafladii abaalmarinadii orodkii ciyaarihii kala duwanaa ee soo socday saddexda toddobaad waa qalanjo habeen wanaagsan idinka leh magaalada Paris halkani waa garoonka weyn Stade France